xafladan ujeedadeedu ahayd dhiirigelin iyo jacayl loo muujinayay saraakiisha iyo ciidamada laamaha ammaanka ka howlgala magaalada Xudur waxaa soo qaban qaabiyey Akram Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Xudur waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bakool, maamulka degmada Xudur, saraakiisha ciidamada guutada sagaalaad, saraakiisha ciidamada booliska, nabad sugidda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xudur. Akram Maxamed Xasan oo ah qabanqaabiyaha xafladda ayaa ka hadlay sababta ku dhalisay inuu abaabulo xaflad lagu dhiirigelinayo hay'adaha ammaanka ka howlgala magaalada Xudur. كل معموس كميلون الجولة مو طاوية ما كنت ترجمها بورك كده اللي كده ديرجلين أو نصب يعني هيئة أمنية وهيئة كمدراعي ما يذكر وشد أنت كمدراعي أما قيت كمدراعي أمين لبسي وأيوة دلنا ما هنلاقي مثلا دلنا معموس مثلا دلنا أنت اللي ديرجلين مدن ما يها dadka shaqeeyo amniga waayo aadamaha mis insaanka may number 1 aha amniga number 1 dadka ka hadlay qaybaha hore ee xafladda ayaa amaanay shaqada adag ee daacadnimada iyo wada shaqaynta bulshada ku dheexan tahay ee ay qabtaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee suurageliyay in laga badbaado dhibaatooyinka iyo shirqoolada ay maleegaan maleeshiyada khawaarijta shabaab. تريار ميت الله مبلغ ميت دين جريان الديان دا شقي دكتور شقي عدالة شقي قروا قط ومدها قربتي جاء معلومة لكن واحد waayo muddo badan ahas la shaqeeyni noocyo badan oo daruufuntu ku adag yahaas kala shaqeeyni oo baahdi ku daranto oo amniga dhan kasta ee dhaliil badan oo tabardaro ee qabna geedahaas kala shaqeeyni xafiis oo qowlna bisaas kala shaqeeyni banaanahaas kala shaqeeyni lan wadanka halyeeyna waato. taliyaha cusub ee dhawaan la magacaabay ee saldhigga booliska degmada Xudur Aadan Wardheere Sheekh oo xafladda si gaar ah loogu soo dhaweeyay ayaa bogaadiyay sida bulshada Xudur u jecel yihiin wada shaqaynta booliska diyaarna u yihiin inay xoojiyaan ka boolis ahaan saaxiibtinimada bulshada. waliba ciidanka maamulana ay ku wadi marnamaad dadkii hadan daabay xafladan oo ulaha badan oo aan iskaashaday oo uu ku odsana maadaama wadinimada bani'aadamka sida heerka ummadda lagu qora fikirka hada diyaarsan marka fikirkii lanka ka dhigay daawadaas intii eedii xafladda inta ay socotay waxaa shahaado la guddoonsiiyey shakhsiyaad maamuus ku dhexleh bulshada waxaana xigay barnaamij ah tijaabi nasiibkaaga oo dareenka ka qaybgalayaasha aad u soo jiitay. gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay maamulka gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada booliska ee xafladda lagu soo maamuusay. waliba kuwaayay taliye saadaga oo arday saaxiibkay Aadan Wardheere Sheekh Mukhtaar oo arday shaqada oo bedel iyo arday waliba kuwaayay gacmo furan wala talo wajir bulshada hay'adda dadka cid ku qoraasan leeyna maanaha tababar intelligence level ilbaran daraha tan nabad jeeyo oo inni maanaha deegaanka horumarka ka shaqeeya hanun jeeyo dadhanu maanaha nabad jeeyo dadhan kala shaqeeya ma farayaan xafladan dadka qaban qaabiyay arday intaan geysay eedeedan ka maasanyin maxamed naqana sidii awal horaba arday wada shaqeey jarnaan bulshada Xudur isla ognin Aadan Wardheere intii dhan dhalinyaro dhan deegaanka dalabyo dhan waqtiga waqtiga tumidii gaabana kusooyin ku tareeyo bulshada ay faaslaan in tariiqa cusub shaqeeyo boqorkaas in la shaqeey ana waqti bulshada la shaqeeyo shaqeeyo oo soo Maxamed Xasan Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.